بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabteyda qaaliga aan aadka u jeclahay kusoo dhawaada janalkeena caafimaad janal. Horey waxaad nooga barateen barnaamijyo caafimaad oo aad u xiiso badan midba midka ka dambeeya ay ka xiiso badan yahay. Haddaba maanta caafimaad janal maxay idin wadaa? Maanta waxaan idin wadaa qajaarka iyo faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo. Sidaan ognahay qudaarta dhulkeena ka baxda dhammaan waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo ku keedsan. Haddaba haddaad ogeed waa mahadsan tahay haddaad ogeen maanta oo ka faa'iideyso. Qajaarka ayaa u roon caafimaadka bini'aadanka isagoo waxtar u leh xanuunka badan. Meelaha uu u roon yahayna waxaa ka mid ah caloosha iyo dheefshiidka. Wuxuu u fiican yahay socodsiinta caloosha iyo sifeynta mindhicirada maadaama ay leedahay xarka jiida wasakhda caloosha. Qajaarka ayaa leh fitamiin C iyo B iyo wax yar oo fitamiin A ah sidoo leeyahay macdan iyo bir muhiim u ah jir dhiska. Sidoo kale wuxuu leeyahay sodium, calcium, phosphorus iyo magnesium. Wuxuu kale u roon yahay dheefshiidka iyo nadiifinta uurku jirta. Sidoo kale qajaarka wuxuu u roon yahay maqaarka. Qajaarka ayaa u fiican maqaarka jirka. Qoloftiisa ayaa loo adeegsadaa hoos u dhigga heerkulka jirka. Sidoo kale wuxuu ilaaliyaa qorraxda cadceedeeda ee jirka. Sidoo kale wuxuu ka ilaaliyaa sunta ka dhalatay wasakhowga hawada. Wuxuu u roon yahay qajaarka madax xanuunka. Wuxuu kale u roon yahay madax xanuunka iyo neerfaha madaxa. Qajaarka wuxuu nadiifiyaa kaadi heesta. Wuxuu qayb ka qaataa nadiifinta uurku jirta. Wuxuu badiyaa kaadida. Wuxuuna nadiifiyaa kaadi heesta iyo marinada. Waxaana loo qoraa dadka qaba cudurka xanuunka kaadi heesta. Qajaarka wuxuu aad ugu fiican yahay kilyaha. Runtii dadka kilyaha dhagxaanta uga jiraan dadka kilyaha caabuqa ka hayo dhammaan wuu u fiican yahay. Qajaarka aad ay ugu wanaagsan yahay kilyaha. Sidoo kale wuxuu u roon yahay qajaarka indhaha. Wuxuu u roon yahay indhaha iyo dadka daalka qabta. Wuxuu leeyahay fitamiino badan. Sidoo kale wuxuu leeyahay aashitada kaafiyig oo u roonka in laga takhaluso biyaha ku xanima maqaarka hoostiisa. Wuxuu baabi'iyaa fuurka ama bararka indhaha. Waxaa la saaraa isha qaybteeda hoose ama qaybtooda kore inta loo gooyo si wareeg ah. Waxaana lagu hayaa nus saac. Waxaa laga isticmaalaa meelaha la isku duugo iyo meelaha haweenka lagu qurxiyo. Qajaarka wuxuu waxtar u leeyahay hooyada uurka leh. Qajaarka ayaa kaalmeeya qofka xaamilka ah kaasoo ka saacida dejinta caloosha. Rogroganka dheefshiidka wuxuu isku dheelitiraa cusbada jirka. Wuxuuna dufan u yeelaa jirka. Qajaarka faa'iidadiisa ma aha wax la koobi karo. Aad ayuu ugu wanaagsan yahay. Waxa ugu wanaagsan uu jirka u qabto waa inuu wasakhda ka saaro. Khaasatan dadka kelyaha ka xanuunsan iyo kaadi mareenka aad ayuu ugu wanaagsan yahay. Waxaa kaloo u roon dadka kelyaha ka xanuunsan biyo badan. Biyaha looma baahna biyo cusbala inay cunaan sababtoo ah waxyaalaha ugu badan ee kelya xanuunka keeno waa cusbada, dhanaanka, saliidda waxyaalahaas. Qofka hadduu marba kelida ka jiran yahay waxaa roon biyaha moysaxada ama biyaha caafiga inuu isticmaalo. Sidoo kale qofkaasna siina inuu badiyo ayaa u roon dadka kelyaha laga hayo. Biyaha dhanaanka ana iska ilaaliyaan. Sidoo kale cusbada iyo inay iska ilaaliyaan saliidda. Kelya xanuunka daawada ugu fiican waxaa waaye biyo in la cabo. Walaalahayga qaaliga qajaarkana aad ay u fiican yahay. Biyo badan ayuu leeyahay. Kelyaha laguma gaaro. Sidoo kale indhaha aad ugu roon yahay. Sidoo kale dheefshiidku u fiican yahay. Uurku jirta wuu u fiican yahay. Maqaarka wuu u fiican yahay. Caloosha iyo dheefshiidkeeda. Faa'iidadiisa ma aha wax la koobi karo oo hal ama laba lagu koobi karo. Insha Allah walaalahayga qaaliga faa'iideysta waa mahadsantihiin. Mar walba saa ila socotaan please subscribe ka naga iloobina. Assalamu alaikum.